waxaan la ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha Paris yimid dalkan Faransiiska. waxaan la kulnay dad kala gedisan. waxaan ugu horeeyay aanu shir la lahayn sharikada si aad u sheegtay qaabilsan arrimaha dekadda. laakiin maanta haddaan arrimihii maanta ka dhacay kaaga warramo shirkii annaka iyana dhex maray wasiir al-khaarajigii dowladda Faransiiska iyo la taliyayaashiisii oo madaxweynaha si xoog leh maanta u qaabilay aadna u soo dhaweeyey. sharaf iyo maamuus la runtii noo galay oo dabcan daawad ogtihiin. wuxuu wasiir al-khaarajigu fursad xoog leh noo siiyey inaan uga warrano qadiyadda Somaliland iyo nabadgelyadeeda, wadahadallada annakiyo ka dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland, horumar halkii ka gaadhay 22 sannadood ay ahayd madax bannaanida dowladda Somaliland iyo madax bannaanida iyo gooni isu taagga oo ahaa mid dadka reer Somaliland ay goosteen oo ay markii naftoodii iyo masiirkoodii arkeen ay ka soo gooday inay gaar isu taagaan. iminkana aan wada hadallo fara badan la leenahay dowladda Muqdisho oo aan ku dadaalna sidii labada wadan ay laba wadan oo jaara oo siman oo barbar jooga noqdaan. taasaanu aad iyo aad ugu sharaxnay. waxaanu ku casuunoonay dowladda Faransiiska, waxaanu jecelahay inay wada hadallada taageeraan. waxaanu ka codsanay inay waxtar xagga dhaqaalaha wax nagala qabtaan. waxaanu ka codsanay inaan cilaaqaadka France iyo Somaliland weyneyno. waxaanu ka codsanay sidii culture-ka iyo luqadda iyo jaamacadaha iyo iskuullada iyo labada wadan ay cilaaqaad khaas u yeeshaan. aad iyo aad buu nooga garowsaday. waxaanu yidhi wasiir al-khaarajigu aad iyo aad baanu ugu dadaalaynaa inaanu gacan qabanno. waanu ogsoonahay Somaliland ay tahay wadan dimuqraadiya, wadan doorashooyin badani ka dhaceen, wadan nabadi taalo oo isagoo dhulka eriyada oo dham ay gubanayso ku dadaala inay nabadgelyadooda xejistaan, wadan ilaalinaya dowladda Ethiopia iyo Djibouti xuduudeeda oo jaarkeeda ay ka nabad galeen. marka sidaa ayuu aad iyo aad aan ugu faraxsanayn aqoonta xoogga u lahaa waxa Somaliland ka socda isagoo aad u soo dhaweeyay. marka aad eegto dhinaca wuxuu idinla soo hadal qaaday wadahadalladan Soomaaliya iyo Somaliland dhex maraya, marka miyuu idinku booriyey in aydun sii wadaan in oo waxay ballan qaadeen iyaguna inay dhinacooda idinka taageerayaan? waxaanu aad iyo aad ugu sharaxnay inay dowladda Turkiga facilitation ka sameynayso. hase yeeshee qaraaradii maalintii dhawatay ka soo baxay shirkii ugu dambeeyey waxaanu isla garan haddii loo baahdo inaanu caalamka iyo dowladaha Security Council-ka ku jira inaanu brief garayno, inaanu war joogto ah siino, inaanu gacan weydiisano khubara. marka waan u baahanahay dowladda Faransiisku inay aad iyo aad noo gacan qabato, wadahadaladana wax ka tarto, aadna noo soo dhaweyso oo ay ogaato nabadgelyada iyo dimuqraadinimada Somaliland ay gaadhay inay tahay mid la xoojiyo, caalamkuna war kuu soo jeesto inuuna gacan qabto oo Security Council-ka wadahadallada socda aanu ka brief garayno. dowladda Faransiiska inaanu cilaaqaad khaas la yeelano taasuu aad iyo aad u soo dhaweeyey, kana mid tahay xisbi maaragtay kambanigan maanta Bolloré ee aanu la shirayna oo kambaniyada ugu waaweyn ah Faransiiska ee xagga dekadaha qaabilsan iyo wixii wada hadal aanu kambaniye kale la yeelan doonaba inay wax nagala qabtaan. dhinaca saxaafadda annaga waa naloo diiday in aan telefishinka qaranka oo kale aan gudaha galno, marka ma waxyaabo kale oo aanad hadda saxaafadda kusoo bandhigeen ayaad ka wada hadasheen oo xasaasiya? dabcan wada hadallo dheer baanu la yeelanay dowladda Faransiiska. waxa nakana khuseeya waxa dowladda France khuseeya sidii labada wadan wax wada qabsan lahaayeen. waad la socotaa cilaaqaad fara badan dowladda Faransiiska lama lahayn. marka maanta wuxuu ahaa kan cilaaqaad aad u weyn oo aanu doonayna inaanu isku afgaranno inay sharikadaha Faransiisku wadankeena yimaadaan, inay dhaqaalaha naga taageeraan, inay xagga nabadgelyada wax nagala qabtaan, in aanu maanta laba wadan oo intii hore isaga soo dhow aanu yeelano iyo waxyaabo kale oo khaasatan dabcan khuseeya annaka ayaan maanta aad uga wada hadalnay. dhinaca kale sacaadatul wasiir waxaa jirta in aydun la kulanteen guriga baarlamanka amaba golaha guurtida senatoriska wadankan Faransiiska oo ah hay-ad aada u dhumuc weyn marka la eego wadankan Faransiiska iyo qawaaniintiisa. iyadana maxaa halkaa ka soo baxay? dabcan senatorsku si xoog leh ayay noo soo dhaweeyeen. qada sharaf bay u sameeyeen wasaaradii la socotay madaxweynaha iyo wafdigiisii. senators fara badan ayaa ka soo qayb galay, aad iyo aad iyaga u daneynaya qadiyadda Somaliland. waxay u egteen Somaliland aada loogu soo jeedo, waxayna weereysteen Somaliland iyo dimuqraadinimadeeda iyo halkay marayso. madaxweynuhu wuxuu siiyey warbixin wadanku siduu yahay, dhaqaalihiisa,
horumarkiisa nabadgelyadiisa waxaanu aada ugala hadalnay intaanu kala hadlay foreign ministerka oo saad ula socoto foreign ministerku de wuxuu ahaan jiray ninkii prime ministerka ahaan jiray 30 sano horteed waddankan nin aada caanana u ah markaa senatorsku aada bay usoo dhaweeyeen wada hadaladii aan la yeelanay maanta wasiir khaarijiga aada iyo aadna waxay isugu taxallujiyeen sidii wax noola qaban lahaayeen waxayna naga garabsadeen inay waddanka yimaadaan cilaaqaad badan bay la leeyihiin maaragtay horn of africa jabuuti ethoobia iyo wadamada jaarka ah marka waxaan filayaa in ay aada iyo aada u tixgelinayaan sidai maanta waxula qabsan lahaayeen somaliland anana diyaar baanu unahay inaan dowladda faransiiska cilaaqaad culus la yeelano cilaaqaad jiro la samaysano aada baanu usoo dhaweynay waxaanu doonaynaa inay yimaadaan oo wax nala qabtaan oo ay waddanka ka shaqeeyaan oonu cilaaqaad cusub la yeelano oonu albaabka u furo cid aliyaal ciddi diyaarinoaba